waa hagaag aqyaaray muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan nin Kenyaan ah oo dhibaato aad u weyn la kulmay markuu ku dhacay cudur aan la aqoon oo markaasi dhibaato aad u weyn u geystay. Ilaahay ha ka koriyo dhammaan muslimiinta meel bay joogaan, annagana Ilaahay ha naga koriyo. ninkan Kenyaanka ah oo waraysi qaas ah siinayay warbaahinta lagu magacaabo Tuko TV. warbaahintan oo ah warbaahin adeegsata website iyo YouTube warbixinadeeda ku tabisa oo aad moodo warbaahinada waaweyn in ay ka afdheer tahay ayaa waraysi uga tagtay tuulo oo ku nool yahay oo dalka Kenya ku taala. tuuladaasi oo dad sabool ay degan yihiin, ninkanna oo sabool ah oo halkaasi degan uu ka mid ahaa. ninkani ayaa waxa uu sheegay in uu waayay ama uu ka lumay xaniyihiisii ama xubintii taranka, taas oo dhibaato aad u weyn uu kala kulmayo. ninkani oo waraysi qaas siinayay asaga iyo hooyadii. warbaahintaasi Tuko ayaa ku waramay markii ugu horeysay oo cudurkani uu ku bilaabanayay in uu ku bilowday cuncunkaasi uu xoqid uu ku bilaabay, markaasina uu xoqay meeshii, kadibna nabar uu ka soo baxay kala barka xubinta taranka. nabarkii uu sii weynaaday ilaa iyo xubintii taranka ay ku laabatay uu waayay. wuxuu leeyahay hadda meeshani waa god oo waxaa ka yimaada biyo. gabadh weriye ah oo TV-gaasi warbixintan u qaadaysay ayaa murug aad u weyn iyo calool xumo kala kulantay warbixinta uu ninkani siinayay. ninkani ayaa ku waramay in ay reerkiisa ama qaraabadiisa, ilma abtigiis, ilma eedadiis, ilma adeeradiisa ay yihiin kuwa ladan oo xoolo leh. marka uu weydiistay in ay caawiyaan, waxa uu yiri in ay ku yiraahdeen waana dhibaysaa, mar walba lacag ayaana weydiinaysaa, xoolo ayaana weydiinaysaa. waxaan ku yiri haddii aadan adinkii caawinayn dadka kale ayaan wax weydiisanayaa. waxayna mar kale igu yiraahdeen waana ceebeynaysaa, taasi oo iga istaajisay cid kale inaan wax weydiisto. ninkani ayaa waxa uu leeyahay dhibaatada aan ku qabo cudurkani ayaa dhaqaatiir ku sugan magaalada Eldoret waxay ka arkeen Facebooka, way la soo xiriireen, kadibna waxay yiraahdeen waan xabaan ka qaban karnaa. dhaqaatiirtii ayaan u tagay, waxna waa ay ka qaban waayeen. arrintani ayaa ninkani waxa ay ku haysaa dhibaato weyn. gabadha wariyaha oo weydiisay bal in uu uga warbixiyo in uu xaas guursaday iyo in kale ayaa waxa uu ka waramay inta aysan dhibaatadan ku dhicin ka hor in uu xaas guursaday oo ay uur qaaday, markay dhashay kadibna ay dhimatay. waxay weydiisay inuu ku tala jiro in uu xaas kala guursado. arrintaasi way ka qoslisiisay, wuxuuna sheegay haddii uu xaas guursado in uu laga yaabee si kale inay u macaamilaan, laakiin shaqadii xubinta taranka dhinaceeda isuguma imaanayno ayuu yiri, taasi oo markaasi xaasaska qaarkood ay raalli ka noqonaynin. hooyadii oo arrimahan laga waraystay ayaa waxay si daboolan oo dadkoo dhan aysan fahmi karin ee u sheegtay in wiilkeeda wax la cabsiiyey ama wax la cunsiiyey, taasi oo sabab u noqotay in ay arrintani ama cudurkani ku dhacdo. hooyadii ayaa sheegtay alaabtani siday u sii yaraanaysay inay dhammaanteed caloosha dib ay ugu laabatay, taasi oo laga fahmayo in cudurkani oo ninkani sabab u ahaa. ujeedka muuqaalkani iyo warbixinada ceenkan oo kale aan ugu soo bandhigayno dadka inugu xiran ayaa waxay tahay in uu qof walba oo muslima uu garto nimcadii oo Ilaahay siiyey. ninkani meeqa dhibaato ayaa isugu tagtay oo adiga oo Ilaahay ka badbaadiyey. mid waxa weeye midda ugu weyn oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nimco ah oo ina siiyey haddii aan nahay dad muslimiin ah. maxaa yeelay nimco walba oo adduunkan lagu siiyo way suulaysaa. ninka ugu qanisan, ugu nimcada badan, ugu taajirsan haddii uu islaamnimada ka qado nimco maahan. nimcada adduunyadu waa nimco, nimcada diintana waa nimco, laakiin labada nimcada diinta ayaa weyn. maxaa yeelay nimcada diinta waxay ku horseedaysaa nolol abadi ah oo aan dhammaanayn, in aad ku raaxaysato oo nolol fiican aa ku noolaato, waa nolosha aakhire. xataa nolosha adduunyada nimcada diinta waxay ku horseedaysaa inaad si wanaagsan ama si fiican aa ku noolaato. sidoo kale nimcada kale ee ninkan laga qadiyey waa nin sabool ah oo guriga uu ku nool yahay iyo tuulada uu ku nool yahay waad aragtaan sida ay tahay. nimcada kale oo Ilaahay naga badbaadiyey waa cudurka ku dhacay. Ilaahay ha naga badbaadiye, dhammaan dadka muslimiintana Ilaahay ha ka badbaadiyo. ujeedkan marka muuqaalkan u soo gudbinay waa in uu qofka muslimka oo nimcooyinkaasi Ilaahay siiye u aqoonsado, kadibna uu Ilaahay ku mahadiyo. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii aad ka heshay fadlan subscribe inoo saar channelka, isla markaasi share garay si ay dadka looga faa'iidaystaan. laagana waa xaggeena. mahadsanid.